daawadayaal war goordhowna soo gaaray ayaa waxa uu sheegayaa in qarax xoogan laga maqlay qeybo ka mid ah magaalada muqdisho inkastoo si dhaba loo ogeyn halka uu sida rasmiga ah qarax uu kaga dhacay. Dhawaaqa gaadiidka gurmadka iyo rasaas goosgoosa ayaa la maqlayaa. Wararka qaar oo dad goobjoogyaal ay inoo sheegeen ayaa waxa uu sheegayaa in qaraxa uu ka dhacay meel ku dhow taalada daljirka Dahsoon ee degmada Boondheere, iyadoo warar kale oo aan helayno ay sheegayaan in qaraxa lala egtay wasaaradda batroolka oo ku tala ex baarlamaanka ee daljirka Dahsoon ku dhow. Dadweyne aad u fara badan ayaa ka argagaxay qaraxaasi, iyadoo sidoo kalena uuro iyo qiiq laga arkayo goobta uu qaraxa ka dhacay. Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ka dhacayay qaraxyo iyo weliba weeraro toos ah oo ay qaadayeen ururka Al-Shabaab. Lama oga khasaaraha ka dhashay qaraxa goordhow ka dhacay magaalada Muqdisho. Dib ayaan idinkala soo socodsiin doonaa daawadayaal.